yaa hortaagan in dalkani doorasho ay ka dhacdo September 17 heshiiskii ahaa oo iyagu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inay raali ka ahayn haddana nasiib darro waa diiday haddana waxaa diiday Puntland iyo Jubbaland nasiib darro fashilka shirarka doorashada yaa iska leh in la sameeyo intaan maamul la samaynin dusha laga keeno in dib u heshiisiin la sameeyo arrintaa maamulka Jubbaland may garwaaqsanin in dib u heshiisiin la sameeyo taana way diideen maamulka Jubbaland dani iyo axmed madoobi iyay u shaqeeyaan oo dantoodu ay fulinayaan wada shisheeyana ay dabada ka riixayaan arrintani inaanay si fudud u dhammaanin kana hortaagan yihiin inay doorashadu u dhacdo si nabad ah oo isla wada ogolaan maxay tahay danta dawladda Kenya ugu jirta deganaan la'aanta Soomaaliya Kenyaatiga danta ay ka lahayn waxay ahayd in badda waqtigeeda gadaal loo sikiyo si madaxweyne kale markuu imaado wadanka ay u laaluushaan danta ay ka lahayn intaas ay ahayd wayna heli waayeen oo maxkamadda ku daadisay wuxuu ahay waxa ugu baaqayaa nimanka musharaxiinta wadankan wadan la wada leeyahay waaye wadankan ha gadanina banaanbaxa muqdisho oo ay mucaaradka ku baaqeen yaa gadaal ka riixaya dawladda shisheeye waana dareemi karnaa qof walba waa dareemi kartaa adiga wariyaha waa dareemi kartaa inay yacni gadaal ka soo riixaan mucaaradka sidiisaba nin walba boorso ay wata inuu buuxsado la rabaa imaaraadka iyo dawladda kale la sheegaya marka aniga waxaan dhihi lahaa ka waantoowaano ha ka laabtaano dalkan yaa la qasin alxamdulillah horumar ayaan ku jirnaa horumarkeena aan ku faanno mucaaradka doonayaan in dalkani ay qalalaasa ka abuuraan halkii joogaan caruurtooda iyo ehelkooda nimanka midowga musharaxiinta la baxay ilmahooda waxay geystaan kan ugu hooseeyo oo ugu dhawaa Afrika kuwan kale waa Yurub iyo Mareykan ay wada degsadeen marka inaan lagu shacabka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed maanta lagu qaraabto waa diidnay xasan sheekh muxuu u difaacayaa faragelinta imaaraadka ay ku hayaan dawladda Soomaaliya aniga carab cadaawad noo ah oo na dulminayso oo nagu taagan oo na dilayso oo na dulminayso ma arkin waxa la sheegayaa waa huuhaa waxba kama jiraan dawladda imaaraadka iyo Kenya maxay u doonayaan inay saameyn ku yeeshaan doorashada Soomaaliya tirdoonka yuhuudda iyo imaaraadka ka shaqeynaya Soomaaliya inay dagaal ahliya gasho dagaal ahliya gali mayna kan waa walaashi kan yaan la diray hadda cid aan kana qowmiya jir shirarka guddiga farsamada bay dhabo uga furmaya yaan doonaynin oo burbur la raba arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxa ku jira faragelin shisheeye adigu sidee xalka u aragtaa